cabsi badan alaygu abuuri jiray hadda dhimanaysaa alile waxba ila hadlaaya anoo dhan si kala ahaa alxamdulillaah marka xanuunsaneed quraan iyo waan saar jiray Soomaaliya haa muddo badan meelo badan aan tagay quraan saar aan layga soo akhriyay waxoogaa marka caafimaad dareemo sideedii la noqonaya الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورا الكسر دواذا وبرنامج كتحناه إنه هاي أو نغش كينين قرآن كإلهي إنه داوي هاي ما أنت برنامج وحان مرتين وقاه أم سلمى أو إنه نغش كينس إن شاء الله تعالى وحيابي إلهي أتصي معجزات كي قرآن كما تلقوا أخري أركت إلهي أتصي يقابك يحنو سناد يحنو سو مرتي markii dambe ilaahay gargaarka ilaahay u sameeyay insha Allah ta'ala naga sheekeen doonta Salma bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay waa mahadis kale alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadda waa fiicanahay aniga aad baa u xanuunsanaan jiray muddo waxaan xanuunsanaa 6 sano ah alxamdulillaah hadda waa ladanahay markaan xanuunsanaa xanuunka meelo badan aan tagay quraan masaar badan aan tagay ilaahayna waan isku xiray markaa meesha imaaday lixdaas sano marka see lagu hay xanuunkaas soo ahay aniga xanuunka waxa igu badnaa wuxuu ahaa waa dhici jiray anoo taagan istaagan ka dhici jiray wadnaha igaraacmi jiray waa dhici jiray mid kale cabsi badan alaygu abuuri jiray hadda dhimanaysaa alile waxba ila hadlaaya anoo dhan si kala ahaa alxamdulillaah marka xanuunsaneed quraan iyo waan saar jiray Soomaaliya haa muddo badan meelo badan aan tagay quraan saar aan layga soo akhriyay waxoogaa marka caafimaad dareemo sideedii la noqonaya waa gartay marka ilaahay baa aniga saamahayga soo qaadan kaana imaado marka quraan ka timid marka xaaladaada bal ka waran si wax isku bedeleen waxyaabihii ilaahay ku tusay waxyaabihii aad aragtay yani sawir guud ahaan ka bixi waxa arkay gorgor macalinka ku aqriyo dhaha quraan ilaahay isku xir takbiir badan akhriso waan ku aqriyo way gubteen ayga iyo libaaxa iyo muradii waxa quraanku akhrisaba waa gubteen waa gartay maxaa ku xigay marka waxa ku xigay maalintii afraad maalintii shanaad quraan ku aqriyay waxa ka soo baxay nin qaabkiisa hadaan garanaynin oo raamo leh waa gartay baa ka soo baxay quraan ku aqriyay way bateen marka guriyo dhan baa isqabsaday anigu waan cabsaday marka quraan ku aqriyo dhahay iska cali weydii maxaa waaye maxaa aad iga rabtaan qolka quraanka aan ku jirnay oo dhan baa wuxuu isku bedelay dad fara badan oo noqday aniga la socdo marka dadkaas waxa la socda nin boqor ah oo markaas dhahay boqor ahay oo meel sare fadhiyo oo taash xiran wuxuu xiran yahay sida boqorada oo kale dahab uu xiran yahay marka waxa waa quraan ku aqriyo kulligood waa gubteen ninka boqorka ya naaga soo haray naagti quraan ku aqriyay waxa soo marka dad asaga hogaaminay ninkaas hogaaminay dabcan amaruu siinay anigu quraanka ku aqrinay ilaahay amarkiis waxa waaye quraanka ku aqriyay waa gubanay marka waxa arkay oo kale calooshayda waxa ku jiray wax boorso camal u eg boorsadii waa soo baxday boorsadii marka la kala furay shimbir cad yaa soo bixinay marka adaa soo bixinay ma quraanka ilaahay quwadiisa ilaahay quwadiisa ilaahay quwadiisa
صح banaanka markay u soo baxday shimbir cad bay noqoto way biibtay markay biibtay haddana way soo dhacday way gubatay intaas quraana ka dawada quraanka ku aqrinayaa waa gartay kadibna waxa ay soo raacay naag mas buu ahaa marka hore mas weyn oo kobra ah oo intaan weyn bay ahayd kadib hadana naag bay isku bedeshay dabcan ashkaashaas kala duwan oo bahaladaas maroodiga iyo libaaxa iyo maska iyo waxaas oo dhan waa suurada jinka isku ekeysiinayaan tashabuh ay ku sameeyaan ma aha xayawaankii oo sax ma aha quraanka ay markaasna xarunta quraan saarka joogta quraan baa lagu aqrinayaa quraana lagu aqrinayaa quraana lagu aqrinayaa anna quraana aqrinay kadib waxa dhacday naagtii wuxuu isku bedeshay maskii wuxuu isku bedelay naag isku bedeshay ninkii waxa isku duubtay boqorka ahaa ninka boqorka isku duubtay adiga soo weerar ma ninka wuxuu dhahay waxaan dhahay soo bax igey meesha oo waxa ku duugan yihiin ninkii diidaysa inuu raaco naagta waxay diideen ninkii inuu ku raaco si fiican way isku duubtay markay isku duubtay ka daayay tiri ha geynin quraanan ku aqriyay naagtii way gubatay kadib waxaa dhacay marka kadib ninkii wuu kaxeeyay bad buu geeyay xeeb meel ah xeebtii baa waxaa dhacday god meel uu ka soo qoday wuxuu ka soo bixiyay warqad iyo wax isku duuduuban oo xirsi camal ah warqadii waa ka soo baxday warqada dhiig baa ku qoran far dhiig ah baa ku qoran waa dhiigaagu jira warqada markii saan loo fiiran waa cadda marka gudaha laga arko korka markii laga arko saa marka aragtidna caadi qofku u fiiriyana dhiig baa ku qoran dhiig yar oo khafiif loo oo far isku dardarsan aan la garanaynin muxuu ku yiri markaa weydiisay markaas wuxuu yiraahday sixirkaagi baa meeshan ku jira ninka saaxirka ii soo dhiibay buu yiri oo boqorka u soo wakiishay waa gartay kadib maxaa xigay oo dhacay kadib ninka saaxirka ninkii boqorka ahaa wuxuu yiri aniga wixii kasto dhan waa idinka gubay aniga hal iska kayfasaxo wixii dhan waa soo saaray waa gartay dabcan markay waxyaabaha dhan arkayso ninka boqorka iyo maskaas iyo waxyaabaha ay arkayso aniga la socdaa ana hagaayay oo agteeda fadhiya quraankan ku aqrinayay sidaas sameey waxa sameeyay wuxuu ahaa su'aashaas weydii waxa soo idin ana lahaa korka hagaayay ilaa markii dambe dhacdo ninkii boqorka ahaa maxaa ku dhacay diintiisii markaa wareysatay kadib muxuu ku yiri aniga wuxuu yiraahday najuusi baa ahaa diinta islaamka ma aqaano kadib waa la soo islaamiyay ashhadu an qawmi waa la soo islaamiyay faras buu raacay marka ay ugu dambeysay maalinkaas uu ka tagay xaaladda ka hor hadda caafimaad saytahay hadda waa fiicanahay alxamdu hadda waa fiican dhacistii ka waran dhici jirtay mardaba ma dhicin saa xarunta imaada alxamdulillah waxaa socdal aad aragtay maxaa leedahay marka anaga awood gooni ah wadana oo kugu tusnaa jirta maya anaga quraanka ilaahay kaliya laygu aqriyay awoodda ilaahay waa iskala qofka tusi kara basiirada rabbi baa qofka laakiin takbiirtaada ina aamintid inuu ilaahay ku caawin karo ilaahay ina isku xirtid tasbiixatid waxa weeye macalinka wuxuu dhihi jiray sheekha ilaahay isku xira ilaahay idin tusi kara ilaahay inuu idin tuso waxa idin dhibaateynayo ilaahay idin tuso isku xira ilaahay inuu idin tuso maxaa leedahay marka dadka xanuunsan adiga nooc adiga kula midka ah xanuunada dhibaatoonaya maxaa leedahay oo soo jeedinaysa waxaan dhihi lahaa ilaahay isku xira oo waxa weeye kalaamur raxmaan wax ka wanaagsan ma lahan ina ilaahay isku dhiibtaan oo meel kasto quraanka aamintid inuu ilaahay shifaa mar hadda caafimaadayna cibaadaadkii aad baratay oo aad sameey jirtay inaad ka harin adkaarti iyo dhikriga istighfaarti shayaadiintani waxa waa cadow ilaahay baa yiri inna shaytaana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaytaan cadow buu idinku yahay meel kasto aad joogtaan ee cadow ka yeesha marka inaad isdayacin oo mar labaad aad isu dhigin adkaartaada iyo dhikriga aad la qabsatay ay ku noqoto wax yani dhaqan ku ah marba aad ka tagin ay ku noqoto insha Allah dhamaan umada xanuunsan qof kasto xanuunsan ilaahay waxa uga baryaynaa ilaahay caafimaad inuu siiyo caafimaad degdeg ilaahay inuu siiyo ilaahay baa wax caafiya anaga dadaal u baahanaa quraan baa dadku akhrinaa dadaal u baahanaa wax kale oo hayna maahan hadii isku tagaan dhamaan suxarada adduunka ee isku dayaan in sixirkii ugu darna ay ku sixraan kuma sixir karaan ilaa ilaahay wuxuu ku qadaray bas moogi wax ay ka qaadi karaan wax walba qadar ilaahay bay ku dhacaan dhib kasto ay geystaanna
kama weyna kama baxsana qadarta ilaahay. haddii marka ay dhacdo in lagu sixray, xalku waa sahlaya inaad ilaahay isku xirtid, oo ilaahay tala saaratid unbuu xalku ku jiraa. haddaad ilaahay tala saaratid waad liibaanaysaa. haddaad u tagtid qof aad ku kalsoon tahay oo yacni caqiidadiisa la hubo inuu qur-aanku ugu akriyo, ama adiga naftaaba is qur-aan saartid, qur-aanka ilaahay baa caafimaad ah. anagana waxaa hayn waa dadaal, qofkan baa ku dadaalaynaa. ama aragtida qofka inuu arko isagoo qur-aanka joogo, waxyaabaan arko qofaan u furi karno si gooni ugu furayna ma jirto, qofaan ka xiri karna ma jirto. ilaahay qofka hadduu isku xiro wuu arki karaa, sida Umu Salma ay u aragtay ee gabdho kaloo fara badan ay u arkeen oo aan noo soo bandhigay xalqaad fara badan aan ka sameynay, iyo kuwo kaloo weli aanan soo bandhigino oo ka cudur daartay inaan xalqaad ka duubno oo barnaamij aan ka duubno. marka in kaloo fara badanna way jiraan. marka waxaan leenahay qofka hadduu ilaahay isku xiro, ilaahay tala saarto, amarkiisa ilaahay baa tawarinaya. ilaahay baa yiri man yatawakkal cala allahi fa huwa xasbuh, ilaahay baa ku filan. intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa. waa salaamantiin. asalaamu calaykum waraxmatullah.